الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo gaarnay darsigeena 19aad ee aan soo gaarnay oo ku saabsanaa tafsiirka Quraanka Kariimka ah. wuxuuna maanta asharkan uu ku saabsan yahay suuratul qadr oo ku saabsan yahay suuratul qadr walaalayaal waa suurad makki ah. waxay ka mid tahay suuradaha soo degay nabiga sallallahu alayhi wasallam hijriis ka hor ay soo degtay. suuradan waxay ka sheekeynaysaa quraanka iyo xilliga la soo dejiyay iyo habeenka la soo dejiyay ka sheekeynaysaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. inna anzalnaahu fi laylatil qadr. inna anagu anzalna waan soo dejinay hu quraanka fi laylatil qadr habeenka laylatul qadr dhaxdiisa ayaan soo dejinay. wama adraaka maxaa ku ogeysayna maxmedow ma laylatul qadr. laylatul qadr habeenkiisa wuxuu yahay maxaa ku ogeysiyay. laylatul qadr habeenka laylatul qadr ayaa khayrun ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood ayuu ka khayr badan yahay. tanazzalu waxaa soo degaya almalaa'ikatu malaa'igta ayaa soo degayso iyo waruuxu malakul jibriil ayaa soo degayo fiiha habeenkaas dhexdiis biidni rabbihim rabbigooda idinkiisa ay ku soo degayaan min kulli amrin ay bikulli amrin arrin walba xaggiisa ay la soo degayaan. salaamun waa nabadgelyo hiya habeenkaas xataa matlaca alfajr ilaa waaga uu ka baryo oo waaga uu ka dilaaco. marka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay inna anzalnaahu fi laylatil qadr. quraanka waxaan soo dejinay habeenka laylatul qadr dhaxdiisa aan soo dejinay. laylatul qadr maxaa la yiraahdaa culimada laba tafsiir way marayaan. laylatul qadr in loola jeedo laylatul sharaf habeen qiimo badan habeen sharaf badan habeen rabbi subxaanahu wa tacaala agtiisa ku weyn. waxaan u daliilaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka. quraanka waxaan soo dejinay habeen barakeysan dhaxdiisa ayaan soo dejinay. marka laylatul qadr in loola jeedo habeen sharaf badan oo qiimo badan oo rabbi subxaanahu wa tacaala agtiisa ku weyn, ama in loola jeedo laylatul qadr habeen la jaangoynayo waxyaalaha rabbi subxaanahu wa tacaala uu qadaray sanadkii dhan in habeenkaas la jaangoynayo la qorsheynayo oo la qoraayo. oo aayadka rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay fiiha yufraqu kullu amrin xakiim. marka habeenkaas ayaa la qadaraya oo la jaangoynaya. marka labadaas tafsiir ayaa ku jirto. rabbi subxaanahu wa tacaala kadib wuxuu leeyahay wama adraaka ma laylatul qadr. laylatul qadr wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey. rabbi subxaanahu wa tacaala asaga ka jawaab wuxuu leeyahay laylatul qadr khayrun min alfi shahrin. habeenka laylatul qadr kaligiis wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood ayuu ka khayr badan yahay wey. habeenkaasna waxaa soo degaya malaa'igta ayaa soo degayso malakul jibriil ayaa soo degayo waxayna ku soo degayaan rabbi subxaanahu wa tacaala idin uu idme ay la soo degayaan. intaas kadib rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi salaamun hiya xataa matlaci alfajr. habeenkaas waa habeen nabadgelyo ah ilaa waaga uu ka baryayo waaga uu ka dilaacay wey. inna anuga anzalna waan soo dejinay hu quraanka ayaan soo dejinay fi laylatil qadr habeenka laylatul qadr dhaxdiisa ayaan soo dejinay. wama adraaka maxaa ku ogeysayna maxmedow ma laylatul qadr. habeenka laylatul qadr wuxuu yahay maxaa ku ogeysiyey. laylatul qadr habeenka laylatul qadriga ayaa khayrun ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood ayuu ka khayr badan yahay. tanazzalu waxaa soo degaya almalaa'ikatu malaa'igta ayaa soo degaysay waruuxu iyo malakul jibriil fiiha habeenkaas dhexdiis biidni rabbihim rabbigooda idinkiisa ay ku soo degayaan min kulli amrin ay bikulli amrin arrin walba ayayna la soo degayaan xaggiisa. salaamun waa nabadgelyo hiya habeenkaas xataa matlaca alfajr ilaa subaxa fajirkiisa uu ka dilaaco waa nabadgelyo habeenkaasi. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.